عاشيها الله قاري لبودا هاتو نحير قيا وقوية وافي الكيداني إنكا يودح ذا قولي دكتا دايما بوها ليه ورحمة الله وبركاته. أصحاب أمانتين وإذن سلام مال والبادون تعالى دي ساكت جبتان وأولاشي نمانيتا وإذن لسك صوب قشونا أحسن حتى الجانل كان كعصب طيب بليز سبسكرايب نوصار لايك نوصار سينا شير قرأي إن شاء الله هدي آمانتا محلها أهورينا ولي جبتنا بليز لايك تي كومنتيga iyo شيرتا انت بدن كاغواية maanta waxaa inta usoo fadhiistay oo wax dad badan ka wada hadleen oo tahay cudurkan hadda magaalada ku faafsan aniga waxa islahaa waa laga hadlay ka hadlay laakiin xalku wuu sii xumaanaya waxaan daawanayay saaki newska Citizen Kenya aan daawanayay marka ninkii oo prime minister ka ahaa oo dhanka caafimaadka qaabilsanaa wuxuu wala hadlayaa kaliya fellow Kenyans wax walba hadal walba oo fellow Kenyans uu leeyahay marka kastoo qabyaalada ay gashay maxaa la dhahayaa marka waxa anaga horto alxamdulillah islaamana hay ilaahay naga badbaadiyo cudurkaas ilaahay naga haayo cudurkaas waxad kaliya oo lagu maxaa la dhahayaa oo lagu silcinayo oo lagu maxaa la dhahayaa imtixaamayo waxa waaye gaalada waaye marka anagani ma dhahayo naguma dhacayo laakiin ilaahay hanaga haayo فهمت انت انا شنتين صلاه tukanayna oo ilaahaygeena aan ku xiranahay oo bahal cararaayaba aanan cuneynin waan ka badbaadi doonaa insha Allah ducooyin badan aan jiro oo sida shaqeeyada kulligood ducooyinka ay idin soo bandhigeen waxa sameeyaan isxijaab marka baxayso oo banaanka aadayso yani xijaab xiro kuma lihi laakiin marka banaanka aadayso isku day inaad isxijaabto oo quraan aad isku xijaabto ya marka waxa waaye aqyaarta cudurka horta aad u sii faafaya coronavirus ala dhaha aad u sii faafaya si xun walibo magaalada u sii galay Nairobi hadda heer waxa la maraya to alafka laga helo 2 qofood oo cudurkaas uu ku dhacay waxan waa waxa soo xaqiijiyay ma fahanteen marka hadda magaaladii si xun bay xaalku xun tahay supermarketyada meel walbo saana la wadiyahay because waxa waaye cudurka haduu uu sii socdo waa lagu baaba'aya ma fahanteen waxa dadka ma haraay marka ilaahay hanaga haayo ilaahay hanaga xijaabo ilaahay ka magan galna insha Allah laakiin taxadara lagu dhahay marka inaad taxadartin wax ka fiican ma la Soomaali Maxamed ay idinka ma taxadirtaan waxa lagu leeyahay cudurka gaalada ku dhacda anaga naguma dhaca sax waay gaalada ku dhacda laakiin ilaahay wuxuu ku dhahay taxadir sameey ma garatay soo maxaa la dhahayaa horta horeeta iskuuladii jaamacadihii meel walba close waa la soo xiraa haddana waxa loo soo socdo waxay tahay in dhanka businessyada dukaamaha meelahaas oo la wada xiro so dhanka dawladda waxa arin oo ka soo baxay saake in ay ku dhawaaqeen ee dhaheen iskuulada iyo wixii dhan taariikh 13 waa in ay iskuulada oo maxaa la dhahayaa dayga in la xiro ya taariikh 16 waa in la xiraa hay boardingka dadka boardingka ku jira in la xiro taariikh 20 na jaamacadaha kulli close la soo dhoo ilaa ay amar dambo marka hero waxa la marayaa xitaa waxbarashadii loo dhaco oo la wada xiro businessyadina loo soo socdo oo la xiri doono marka idinka ha yareysanina hana maxaa la dhahayaa wax easy ha ka dhiganina cudurkan cudur jiro waaye oo la soo sheegay daawadiisana waxay noqon kartaa quraankaas inaad akhrisatid salaadaada aad tukatid liindhanaan iyo biyo kululna aad isticmaashid wax salaan la dhahayo oo gacan sharing ahna inaad joojisid totally ma fahanteen marka waxa waaye waa sii baaray waxa u fiican oo waxa ay kaliya ka taxdir ilaa hadda daawo toosan lama helin laakiin Mareykanka daawo ay heleen ayaga isticmaalaya laakiin anaga masaakiin aan ahay Afrika joognaa daawooyinkaas ma heli karno ma fahanteen marka waxa kaliya aad ku taxadiri kartaan waxa waa immunity systemka inaad la dagaalantaan yani aad isticmaashaan liinta iyo biyaha kulul liinta orange-ga misalin dhanaanta inaad galaas ku dhirtaan 3 gabal u kala goosaan oo biyo kulul ku shubtaan cabtaan maxaa la aniga waxa idinka faa'iideynaa waxa isleeyahay ina qaar taqaan waa laga yaabaa laakiin qaar aqoonin in masaakintaas ayagana oo ka taxadiraan way ka taxadirna weeyaan noloshooda anaga walaalaa nahay Soomaali Maxamed nahay hadana muslimna isla nahay marka waxa wanaagsan qofka walaalka ah wuxuu kula soo wadaago oo
oo maxaa la dhahayaa qayrkaa ku jiro mise caafimaadkaa ku jiro inaad samaysid intaa dhihi lahayd been waayo waxaan cudurkan waayo kan waayo taxadir waxaa sameysaa biyahaas kulul jermis buu dilayaa cudurkaasna waxaa la dhahay meel oo 30 يعني 30 degrees kulul ka kulul ya ma qaban karo because ma ku noolaan karo kuleelkaas la leh cudurka soo sida Mombasa kale waa 39 and above degrees kuleelkiisa zaid waa taqaani soo maha meeshaas oo kaleeta ma tagaay bahalkaasi because kuleelka uu dhibaya leh cudurkaas kuleelka uu dhibaya marka anaga inta joogno waa 30 degrees 28 intaas waa kuleelka soo inuu san nagu badanna laga yaabaa hadaa gacmaheena 90ga aad dhaqano 20 seconds lagu dhahay 20 seconds isku day inaad gacantaada aad dhaqdid oo nadiifisid supermarketyada waxa la keenay antibacterial la keenay wax walba la keenay in adiga gacantaada caagir waay baagada ku wadatna cabaar yar ka bacdiba waa qabanaysaa waa iskaga tirtiraysaa waa iska dhaqaysaa soo waxa la symptomka oo lagu ogaan karo oo lagu ogaan karo in uu coronavirus ku hayo waxa kamid ah qufaca saidka qufacaysid xabeeb amalku galaayo qandhada too much ka intaba waxa lagu ogaan karaa coronavirus inuu symptomkiis uu ku hayo soo hadaa waxyaalahaas qufac amalaas ku aragtid xitaa waxa sameynaysaa liintaas cun biyahaas kulul iyo liinta isku dhaxdarso cad dhuuntaanu badanaa fadhiistaa le cudurkaas dhuunta ma fahant marka waxa la sameynaysaa dhuunta ma fadhiisto biyo kulul ku dil because waxa la cudurkaas wax kulul wuu dhibaya biyo kulul oo liin leh germska way dilay isticmaala guys isticmaala wallahi serious ay iga tahay ina isticmaasho wax ka fiican ma lahan ina ka taxadirnoon wax ka fiican ma laha Ebola wayna soo martay magaalada way soo gashay ilaahayna wuu naga saaray wuu naga qabtay ma hadana kan waxa ilaahay ka baryaynaa inuu naga hayo cudurkaas oo maxaa la dhahayaa aanan isku arkin maxaa la dhahayaa dibkaas iyo cudurkaas wax la mid ah insha Allah marka laba qofood kaleeta la soo helay daraad waxay ahayd waxa laga soo helay hal naag oo ka imaatay Mareykanka waxayna ahayd Kenyan passport Kenyan ay wadatay iyada ayaa positive noqotay oo laga helay marka that's why argagax uu u dhacay magaalada iyadoo taas lagu mashquulsanaa oo gaari diyaaradihii wixii dhan oo la wada joojiyay lama duuli karo mana la soo gali karo unless aad tahay la dhahay Kenyan pure Kenyan inaad tahay misana aad tahay qof passport weyn wato yani la aqoonsan yahay sida Mareykanka oo kale ina passport weyn oo la aqoonsan yahay magaciisa la yaqaano ina wadatid labadaas mid un baa ku soo gali kartaa wadanka Kenya tan kaleeta hal shalayto ayaa waxa laga helay laba qof to alafka joogan laba qof kaleeta positive la soo dhahay marka ma cadeyn kari inay Soomaali tahay iyo inay madow tahay laakiin Soomaali ilaaha ka hay ilaa hadda Soomaaliya ku dhacda ma lahan war daraad waxaan soo gaaray oo leeyahay Sweden maxaa la dhahayaa gabar Soomaaliya laga helay wayna ku dhimatay waxaasna waa been intaan guys Soomaali wali muusan ku dhicin islaamkiin wali muusan ku dhicin laakiin ilaaha naga hay ilaaha naga xijaabo insha Allah markii idinkan waxa la rabaa inaad taxadir ka badisaan oo maxaa la dhahayaa gacanta qof aadan salaamin misana qof oo xanuunsan oo kale aadan u dhawaanin waxa la dhahay qofka haayo xanuunkaasi hal mar uu neefsado hal saacadood uu ku jiraaya habada la neeftiisa because cudurka uu soo adeegay oo culus yahay neeftiisa 1 hour dhan ee ku jiraysa maxaa la dhahayaa habada ma garatay so guys qof oo xanuunsan xitaa ka fogaad inta ka fogaan kartaan hadaa mask isticmaal kartaan isticmaala hadii maxaa la dhahayaa isticmaalaysiin shareer awalna isticmaal jirtiin shareerka hal xirno qofka ka fogow ilaa ya cabaar I know Soomaalina ku dhaceen laakiin taxadir lagu dhahay taxadir marka taxadirkan uu fiican yahay ila taxadiro guys waxa idin kala talinayaa ina ka fogaataan insha Allah maxaa la dhahayaa intii soo adeeganin walina soo adeegataan anytime anything can happen wax oo maalinta ka sii xigto si siyaadanayo waay oo wadan alla wadan ku noqdo inuu tagay la xaqiijiyay ma fahantay because maxaa la dhahayaa wadanka China ka soo bilowday China ka soo farcamay xanuunkaasi laakiin hadda waa aragtaan ilaa Nairobi jooga ilaa wadamo kale Europe tagay ilaa Mareykanka tagay meel walba tagay so guys waxa idin leeyahay inaad taxadirtaan soo adeegataan
dukaamaha mardhow ayag dhan close ay noqon doonaan haddii uu ilaahay naga qabto cudurkaasna waa gooni haddii kaleeto isaan kusii socotana wax shaqo la yiraahdo iyo ganacsi intaba ma jiri doonto ma fahantin marka intii baxal biyaha la cabayo xitaa biyaha la cabayo in la waayaa laga yaabaa soo biyaha soo badsada guriga dhigta adeeg raashinka 2 bil 3 bil waxay ahaato iska soo adeegta idinka ilaa gurigiinu idin yaalaya Soomaa qof qoriga idin ku haysmala oo idin dhahaysa daadiga marka hal isku taxadiro guys hal isku badnaado insha Allah wax walbana qeyr ku noqon doonta insha Allah ilaahay hanaga haayo cudurkaas ducooyinka hala akhristo quraankana hala badsado gurigiina naagaha anagara oo raaxo jecelnaa naagaha kibarwayaalka ah u caneyno oo guryaha inoo hagaajinayo ayaga naftigooda inay wadaan aqaano mana ogin ma fahanteen marka ka taxadira isku day inaa idinka wax walba qabsan kartaan oo naag madow ah u baahneen haddii ay guriga ay ku joogtana iska fasax gurigeeda aad ku dheh cuduraa bilowday magaalada waa xun yahay qof walba gurigiis inuu joogaa la rabaa ma fahanteen guys luwa hoostooda raaxayaa laga raadinin hal isku filnaado waxa la qabsado adeeg inta soo adeegan kartaana soo adeegtaa because xaalka aad u xun yahay ilaahay hanaga haayo wixii shar iyo shaytaan intaba marka guys waxa intuu soo fadhiisan halaas ahayd ina idin la wadaago I hope inaan ka faa'iideen aniga waxaan galay dhanka oo maxaa la dhahayaa dawladda oo maxaa la dhahayaa newska daawaday wixii dhan ay fiiriyay dadku waxay sheegayaan kulligooda isku fiiriyay meel walba waa ka soo fiiriyay marka guys marka arkay in waxaan si siyaadanayna waxa istaas xataa la share garay marka hal isku badnaado insha Allah khayr noqon doonta waxa idin kaga tagay sidaas nabadgeliyo waxa idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh